قفل ابن آدم ورمانيا إلههم بوراءه ما أنتنا واحد نشوفنا آسكي مرحوم محمد إبراهيم حذراوي وأنا ما أنتين وذكرين وحكرون يرى ما أنت قريتي إددي يدنا الهاي هو نحرسته يعني راس قيس وحكون عائلة قريون تيسي إددي ويرى هذا هو الصياح حذراوي أنتي تذكر الشيئين با يكون رأسنا هاي تاريخ سنة والقوري دوراه هل كان دقن بين ما أنتوا بحنا حذراوي قف والقف صومالي كل هالضبط وحارس لا قف كان نفتي سوق هذا قف كان مو هذا أديك النفط هذا أيوك على هذا صادوا نقمش قف والقف صومالي كل هذا يقويس والبنا كم بتبوها صار لبض ولا لها يوارد كي لبض إسقاطها مرتين حذراوي مد ولباء يعيش باستعمالي rag badan oo kale oo gabayga iyo murtida gaadho waa jiraan laakiin wuxuu galayaa fooraadka waaweyn murtida ayuu ahaa ilaahay hadraawi ha naxariisto wixii muslimaan ka horeeyay ilaahay ha naxariisto inagana ilaahay uga naxariisto dhammaan martida meelaha fofo ka yimid ee sida keediska uga soo gaarayna aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa walaaltinimada iyo tacsiya ay naga soo qayb galeen iyaga iyo dalkooda waa u mahadnaqaynaa ummadda Soomaaliland dhammaanteed sameeyay wala ka siiyo wixii af Soomaali ku hadlay wixii bartay qoyskiina ilaahay sameeyay ka siiyo labada qof waaweyn ka baxayna ilaahay cabd khayr qabarkooda soo dhaw ilaahu naga noqdo daban xariiso ilaahu dhibaatooyinkooda naga duuqaad ay abaaruhu ugu horeeyaan iyo cimilada leelay way isbedeshay roobkii yaraaday ee dhibaatooyinka bateen ilaahay kuwaana hay naga duuqaado colaad iyo cudur Allah hay naga ilaaliyo ilaahay rabbigaada nabad iyo roob iyo caafimaad يا عارنا كبرنا إلههم مرحوم قال أنت أصل وصو تعيس كسو حاضرتينا إلههم دعادي سنة أكبر نفو لبا موتك يجري ذا ويدا من دونتا ما أنت وحين يسقون نمي آسكي محمد إبراهيم ورسمه هدراوي محمد إبراهيم ورسمه يوها هدي اللي يسوي ذيو محمد إبراهيم ورسمه وحوها أرضي نولولات nolosha faaqiday oo baaray wuxuu ahaa macallin wuxuu ahaa philosopher wuxuu ahaa suugaanyahan iyo abwaan wuxuu ahaa nin qayb kasta oo nolosha intuu baaray wax ka yiri waxa laakiin intaas oo dhan isku fuuqsaday wuxuu ahaa halgamaa buu ahaa mujaahid buu ahaa samafaluu ahaa wanaag faruu ahaa wax kasta oo wanaagsan oo qofka bini aadamku yeelan karo maxamed ibraahim warsame wuu ahaa haddaan suugaantiisa haddaynu xusno ka gayoon mayno sidaa hore loogu sheegay waxa laga yaabaa inta af Soomaaliga lagu hadlayo ee qof af Soomaali ku hadlaa jiro in suugaanta hadraawi ay tiir weyn ka ahaato إلهي وحنا الله يقبر يا محمد إبراهيم ورسمها تراوي إنه إلهي قدك واسعيو إنه إلهي جنر الفردوس كورابيو أنا كسيجارة أيو إيجاد انتي وحوها صاحب أنا ولا بتنشر أيان وصاحبني إلى إيو إنتان تأذى سو جاري صاحب بانو أهين سوغانتي سانو محي هذا متكست أو يبفريو نك وجوه الردات كوجوه الريا uu soo hordhigaabaan ahaan jiray ninka ugu horeeya ee qore ayaan ahaan jiray saaxiibkay haddaan ka warrabo wax badan baan anigu ka bartay dhallinyaradan waxaan jecelahay inay wax ka bartaan dhaxalka uu uga tegey anigu waxaan ka bartay waxaan ka bartay anigoo yar oo dhallinyaro ah waxaan ka bartay in qofna aanan reerkiisa ku jeclaanin qofna aanan reerkiisa ku nicin waxa kaloo aan ka bartay in uu ahaado in ay maskaxdaadu ahaato mid adigu aad leedahay oo adigu maxay hayday aad maskaxdaada cid kale aanay isticmaalin maxamed ibraahim warsame wuxuu inooga tagay dhaxal buu inooga tagay qoran inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun maanta waxa halkan lagu kulmiyay inuu sugu nimiyo intana bulshada isugu timi waa mid inuu wada ogsoonahay waa mid inuu marxaati ka wada nahay waa mid dhamaanteen saameynteeda iyo dareenkeeda nagu leh waxaanu joognaa
aaskii marxuum ilaahay naxariista jannaha ka waraabiya abwaankeenni weynaa macallinkeenni weynaa maxamed ibraahim warsame hadraawi ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo maanta maxamed ibraahim warsame wuxuu inooga baahan yahay waa duco taariikh nololeedkiisii iyo astaamihii uu ku lahaa qaranka somalilan iyo ummadda soomaaliyeedba waa mid dhammaanteen aan markhaati ka nahay oo dadkii la jiilka ahaa ee la jaan qaaday dhammaantood wanaaggiisii iyo samafalkiisiiba ay markhaatiya maragu fureen wanaaggaa uu soo sameeyey ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baryaynaa inuu qabriga ugu abaal mariyo oo jannadii firdowso ka waraabiyo waxaan halkan tacsi tiiraanyo looga dariyaa dhammaan eheeladii iyo qaranka somalilan iyo ummadda soomaaliyeed baa abwaanku ka baxay oo maanta aan ognahay oo dhammaanteen wada dareensannahay in la tabi doono oo kaalinta maanta uu inagu baneeyey cid inoo buuxin doonta ay iska yaraanayso ilaahay subxaana wa tacaala naxariis jannaha ka waraabiyo marxuumku annaga si gaara uu noo taabtay maadaamaanu ahayn eheeladii iyo jifooyinkii uu ka soo jeeday mar labaadna aniga marxuumka xaaskiisii aanu muddo ka hor aasnina habararta bay ahayd labadoodaba ilaahay waxaa inooga baryaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo isagana maanta ilaahay ugu daba naxariisto innaa lilaahi wa innaa ilayhi